dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in tirada dadka Soomaaliyeed ay korortay 32 sano ee la soo dhaafay sida Maxamed Ibrahim warkan uu ku faahfaahinayo. wasiirka arrimaha gudaha federaalka dib u heshiisiinta xukuumadda federaalka Soomaaliya Axmed Macalin Fiqi oo ka hadlay in 32 sano kadib ay korortay tirada dadka Soomaaliyeed iyo sida loogu baahan yahay in Soomaaliya laga hirgeliyo degmooyin cusub oo buuxiyay shuruudaha degmanimo. wasiirka ayaa intaasi ku daray in arrinka meelmarintaasi ay kala hadleen baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya oo hadda qaarna ansixiyay halka kuwa kalena ay meel wanaagsan u mareyso. in 32 sano kadib in dadka demographically dadku tiradoodu inay kordhayso baahidoodu badanayso magaalooyin aan jirin 32 sano ka hor ama jiro yaraa inay abuurmeen oo u baahan ayaguna inay gaaray in ay degman noqdaan in baarlamaanka madaxweynaha xukuumadda iyo wasaaradda arrimaha guduhu ay soo jeedisay baarlamaankuna ansixiyay waxna u dhiman yihiin in degmooyin cusub la abuuray oo soo buuxiyay shuruudihii degmooyinka iyadana waa ka hambalyeynaynayo runtii arrintaas farxad weyn bay galmudug u tahay. waxaan aaminsanahay in maamulka la daadejiyay macnihiisu yahay adeegii hadda maayarka Cabdiraxmaan uu ka hadlayay oo la daadejiyay. waxaanan madaxweynaha oo codsigii aan daba dhigaya in wixii service ah adeega in lagu wareejiyo lakabyada dawladda ee lakabka dawladaha maxalliga ah dawladda hoose in lagu wareejiyo adeegyada waayo dawladdii federaalka ahayd baaba soo wareejisay awoodo badan oo ku wareejisay dawlad goboleedkana waxaa laga rabaa inay maamulada degmooyinka ku wareejiso awoodaha oo awooddii meel dhex aan lagu hayn oo wasaaradda caafimaadku ay wareejiso caafimaadka degmada oo wasaaradda biyuhu ay wareejiso biyaha degmada oo wasaaradda waxbarashadu ay wareejiso waxbarashada degmada oo korontada la wareejiyo oo dhammaan adeegyada wadooyinka lagu wareejiyay degmooyinka marka loo tababaro kadib wayna qaban karaan mar haddii dadkii waayo baahida taagan oo qofku uu la soo toosayo ayaaba intaas ah. marka madaxweynaha waxaan codsigeena daba dhigaynaa annaguna in dawladaha hoose loo wareejiyo loo daadajiyo awooddoodii